kulanti wanaagsan daawadayaal halka dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada caawa ku daawan doontaan hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqonayo kulamo xasaasi ah oo ka soconaya magaalada Muqdisho iyo xog culus oo laga helayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo lagu afduubay filla Soomaaliya. waxaan idin wadaagi doonaa xogta macluumaadka la xiriira Axmed Madoobe iyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo noqday kaliya labada maamul goboleed ee soo gaaray magaalada Muqdisho kadib markuu shir isugu yeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan idin wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay xogta sheegaysa in Axmed Madoobe uu ku afduuban yahay filla Soomaaliya. waxay tahay sababta Saciid Dani uu diiday inuu Muqdisho u yimaado lafta gareena uu taleefanada uga dansaday Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan idin soo gudbin doonaa xog sir ah oo laga helay shirka uu ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo laba maamul goboleed oo bahdil xoogan u geystay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaan warar dheeraad kaga helnaa. qodobada kale oo daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo codsi la yaab la hordhigay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. maxaa ka jira in kulan albaabadu u xiran yahay saacadii la soo dhaafay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xilli waayidii ugu dambeeyay la saadaalinayay in madaxweyne Shariif Sheekh Axmed uu ku biirayo xisbiga Nabad iyo Nolol uu hogaamiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. warar ayaa idinkaga helnaa. macluumaadada kaleetana waxaa ka mid noqonayo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya oo qorshe halis ah bilowday fariin lagaga soo diray Nairobi oo ay ku dhaqaaqday iyo waxaan idin wadaagi doonaa mooshin aanan caadi ahayn oo laga abaabulayo magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi. mooshinadaas iyo halka ay ku sii jeedaan ayaan macluumaad idinkaga helnaa. qodobadaas iyo kuwa kale ay hayaan ku gorfeen doonaa barnaamij wareedkeena aan ku bilaabo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horaan ku dhawaaqay shir aanan caadi ahayn oo ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. shirkaasi uu isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada inay isugu yimaadaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. shirkan ayaa waxa uu qorshe u ahaa in dhammaan madaxda maamul goboleedyadu ay ka qayb galaan, hase yeeshee la wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa u xaqiijiyay warbaahinta Somaliweyn Production in madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya si aan ka gambasho ay isaga diideen inay shirka ka qayb galaan. sidoo kale la wareegyada xilkaska ah ayaa waxay ku waramayaan in madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen oo ah labada mas'uul ee kaliya soo gaaray magaalada Muqdisho hadda ay yihiin kuwa ku afduuban filla Soomaaliya. madaxweynayaashan oo isku dayay inay dib deegaanadooda ugu noqdaan si gaar ah madaxweynaha Jubbaland ayaa laga hor istaagay. Axmed Madoobe ayaa qorsheynayay inuu magaalada Nairobi uu tago si uu kaga qayb galo munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee waddanka Kenya William Ruto. hase yeeshee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u sheegay inuusan ka aqbali doonin go'aankaas, waxaana uu ku wargeliyay inuu Muqdisho u joogayo inta xal loo helayo maamul goboleedyada Puntland iyo Koonfur Galbeedna laga qancinayo inay soo gaaraan magaalada Muqdisho. toddobaadkan ayaa lagu wadaa inay dhacdo munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya. hase ahaatee Axmed Madoobe qorshihiisu waxa uu ahaa haddii shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda ay ku soo gabagaboobaan muddo ku eg 2 cisho inuu u duulo magaalada Nairobi, maadaama dowladda Kenya ay tahay dowladda uu gadaal u galo markii ay isqabtaan isaga iyo dowladda federaalka Soomaaliya. mana jirto sabab uu kaga baaqan kariyo munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. hase ahaatee la wareegyadu waxay sheegayaan in laga diiday qorshahaasi uu dabacsanaa, waxaana uu ku xaniban yahay filla Soomaaliya. sidoo kale waxa maanta garoonka diyaaradaha laga celiyay ciidamo gaar ah oo uu watay, iyadoo Mahad Maxamed Salaad uu sheegay in amnigiisa isaga uu sugayo ciidamada gaarka u watana ay yihiin kuwa qalqal gelinayo amniga caasimadda. intaasi kadib ayaa waxaa dhalatay in Axmed Madoobe lagu qasbay inuu Muqdisho uu sii joogo. dhinaca kaleetana madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Puntland ayaa iyaguna waxa ay bahdil xoog leh u geysteen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii ay diideen dalabkii uu soo gudbiyay oo ahaa in ay ka qayb galaan shirkani. wararka ayaa sheegayo in Cabdicasiis Lafta Gareen uu dansaday taleefanada isla markaana uu dhagaha ka fureystay qorshaha iyo shirkan lagu wado inuu ka qayb galo. Lafta Gareen ayaa waxa uu si weyn kaga dheregsan yahay qorshaha ay Damul Jadiid damacsan tahay oo ay ku doonayso in ay afka ciidda u darto maamulkiisa. waxaana Damul Jadiid la sheegay inay qorsheenaysay marka uu Lafta Gareen u yimaado magaalada Muqdisho in magaalada Baydhabo loo diro wasiirka diinta ee waqaafta Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo haatan filla Soomaaliya ay qorsheenaysay in Baydhabo ay geyso. hase yeeshee Lafta Gareen oo arrintaasi ka feejigan ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ee Shaati Guduud waxa
waxa uu dhigay ciidamo gaar ah waxaana uu ka hortegay qorshe walba oo damul jadiid ay isugu dayi karto in maamulkiisa ay ku afgambiso. Ilwareedyadu waxa ay warinayaan in xaaladda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya si weyn ay u kala fogaatay kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidii uu rabo uu ka waayay maamul goboleedyada. Shirkan waxa uu ku yimid markii madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya wasiirada maaliyadda ay isku qabteen hanaanka qaybsiga maaliyadda ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyaduna ay ku doodayaan in 40% dowladda federaalka la siiyo halka 60% ay qaadanayaan wasiirada maamul goboleedyada, iyadoo dhinaca kale dowladda federaalkuna ay ku doodayso in si siman loo qaybsado. Maamul goboleedyada Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa waxa ay hormuud u yihiin maamulada sadbursiga doonayo, iyagoo dagaalka ay kula jiraan damul jadiidna banaanka si cad u keenay. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa isaguna bayaan rasmi ah oo uu soo saaray ku qeexay inuusan diyaar u ahayn inuu Muqdisho yimaado. Ilwareedyo kala duwan ayaa siyaabooyin kala duwan kaga hadlay sababta labadaas nin ay kaga maqan yihiin magaalada Muqdisho. Ilwareedyada qaar waxay sheegayaan in sababo amni awgood ay ka cabsi qabaan sidii loo galay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe in iyaguna loogu xanibo magaalada Muqdisho, iyagoo dhammaantoodba doonayo inay ka qayb galaan munaasabadda caleemasaarka William Ruto. Si kastaba ha noqotee, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmayo wajigabixii ugu xooganaa, iyadoo maamulada inay bahdilayaan si la mid ah marka laga soo tago maamulada bahdilo xoogan ayuu kala kulmayay horaantan dowladaha diriska ah sida dowladda Uganda oo madaxweynaha wadankaasi bahdilo xoogan u geystay. Waxaa sidoo kale bahdilay madaxweynaha Masar oo saacadii u watay inuu iska furo ku amray, iyada oo dowlado kale oo bahdil u geystay ay jireen. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadku la anfariirsan yihiin siyaasadda cusub ee aanan la tacaamulka iyo weliba isdhexgalka lahayn oo haatan la yimaaday maamulkiisa damul jadiida. geesta kale tan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Marwe Sacdiye Yaasiin Samatar ayaa qorsho aanan caadi ahayn ka bilowday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, iyadoo fariin aanan caadi ahayn oo kaga timaaday dhinaca iyo Nairobi ku daawacday mareegta Facebook ay ku leeyihiin gudoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Fariintan oo ahayd mid ay ugu hambalyeynayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Kenya ayaa waxa ay ku sheegtay inay diyaar u tahay inay la shaqeyso, iyadoo dad badan oo ka falanqooda arrimaha siyaasadda la shaqeyntaasi siyaabooyin kala duwan ay u fasireen. La shaqeyntan ayaa la tilmaamay in ay noqon karto in dowladda Kenya ay kala shaqeyn karto qorshe walba oo ay damacsan tahay, xitaa haddii ay noqoto in la afgambiyo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ama gebi ahaanba in jagada laga tuuro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Kenya ayaa ka mid ah dowladaha sida weyn saameynta ugu leh marka la eego siyaasadda Soomaaliya, iyadoo faragelin qaawan oo toos ah ku leh hadiya goorale baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. geesta kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa codsi aan dhinaca kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan aanan caadi ahayn la yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu kulan abaabulan isla markaana uu albaabada u xirnaa uu la yeeshay xubno ka tirsan xisbiga Himilo Qaran oo uu hogaamiyo Shariif Sheekh Axmed. waxaa la sheegay in kulankan uu ka dhacay hoyga Sheekh Shariif oo ka degan yahay magaalada Muqdisho, isla markaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulanka waxa uu ahaa marka ugu horeyso mid uu tacsi ugu tagayay hoygiisa oo uu kaga tacsiyanayay hooyada Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo horaan geeriyootay oo lagu magacaabi jiray Allah u raxmade Marwe Xasan Cabdullaahi Saaq, taa oo dhawaan ku geeriyootay dalka Imaaraadka Carabta laguna xabaalay qubuuraha ku yaala Shabeellada Dhexe. xubno ka tirsan Villa Soomaaliya oo la socday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulankan la qaatay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxayna ka wada hadleen arrimo xasaasi ah marka laga soo tago tacsida, iyadoo sidoo kale tan la soo hadal qaaday qodobo dhowr ah oo ka mid ah in madaxweyne Shariif Sheekh Axmed waayidii ugu dambeeyay uu ka deedsanaa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay inuu ka raali gelinayo Shariif Sheekh Axmed iswaayidii kadib xilka madaxweynaha Soomaaliya markii loo doortay, taasi oo ku timid buu yiri howlo adag iyo dowladda cusub dhisitaankeeda oo meel sare gaartay. sida ay noo sheegeen xubno ku sugnaa kulanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa culayska waxa uu ka soo kordhay magacaabidda gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Madaare ka oo dalbaday inuu Shariif xal ka gaaro qeyladaanta beesha Galmaax Yoonis. magacaabidda Madaare Arbacadii loo dhiibay xilka wadanka Muqdisho
muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale ka codsaday sheekh shariif sheekh axmed inuu ka hortago isbahaysiga mucaaradka ah oo ay abaabulayaan xasan cali kheere iyo xubno hore oo ay ka wada tirsanaayeen golihii midowda musharaxiinta Soomaaliya ku darso sheekh shariif sheekh axmed xisbiga himilo qaran boos wanaagsan lagama siinin dowladda cusub marka laga reebo dhowr jago oo qaarkood ay liitaan sida wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha oo Ilyas Cali Xasan loo magacaabay warar kale ayaa waxay sheegayaan in xasan sheekh maxamuud oo helay macluumaad hoose oo sheegayo in dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta reer muqdisho ay abaabulayaan mucaarado xoog leh oo dowladiisa lagu ridayo sidaas awgeed ayuu sheekh shariif sheekh axmed kala shaqeynayaa fashilinta qorshayaashaasi oo ay maamul goboleedyada dimacsan yihiin lama oga sida uu sheekh shariif sheekh axmed uu la shaqeyn doono xasan sheekh maxamuud isla markaana ku casuumi waayay wada tashiyadii la filayay in dowladda cusub lagu dhisayo maadaama ay iskaag dhawaayeen isla markaana fikir ahaan si weyn ay isku raacsanayeen dagaalkii la galay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagu eedeeyay in dowladda cusub uu ka wada safay xisbiga UPD akhbaarta laga helay kulankii xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxay sheegayaan in sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud in ay balameen in kulamo kale la isugu yimaado isla markaana isfaham laga gaaro waxyaabihii laga wada hadlay walow ay ka gaabsadeen warbaahinta inay la wadaagaan xogta kulankaasi gudaana daawadayaal taas ayaan ku soo meeraya barnaamij dowladkaas kala socoteen Soomaaliya Production tan iyo kulanti dambe nabad iyo warsan